xog warankan uu warbaahinta siiyay afayeenka xisbul xaakimka talada haya kulmiye xasan maxamed cali gaafadhi ayaa sharaxaad ka bixiyay gurmadka ballaaran ee laga galay samata bixinta dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool deegaanada wadanka isagoo afayeenka xisbiga kulmiye iftiimiyay doorka weyn ee xukuumadda talada haysa ay ka qaadatay gargaar u fidinta bulshada reer Soomaaliland ee abaarta ba'ani ay hayso iyo kaalmooyinka iyo deeqaha ay gaarsiisay dadka si loo samata bixiyo noloshooda iyo taxoolahooda dawladda iyo shacabka iyo caalamku waxay galeen gurmad aad u ballaaran oo ay horseed ka ahayd dawladdu wasaaradda maaliyadda tacab ballaaran ayaa aad uga gashay sidii deegaamada abaartu haleeshay wasaaradda caafimaadka waxa ka mid ah wasaaradda xanaanada xoolaha oo wixii daaweynaya xoolaha la gaarsiin karo iyaduna gaarsiisay waxa ka mid ah arrimaha gudaha waxa ka mid ah warfaafinta iyo wacyigelinta oo kaalintii kaga beegmad qaadatay waxa ka mid ah wasaaradda biyaha waxa ka mid ah wasaaradda qorsheynta waxa gurmadka ka qayb galay dawladaha hoose waxa taakuleynta ka qayb galay dhammaan shacbiga Soomaaliland oo ay horseed ka yihiin ganacsatadu safarkii ugu dambeeyay madaxweyne ku-xigeenka gobolka Awdal ku tagay wuxuu geeyay 400 kartoon oo timir ah 10,000 oo loogu talagalay raashin iyo shidaal iyo biyo loogu talagalay 800 oo kiish oo raashin isku jira iyo inuu halkaa maxaan ku raahday ka abaabulay kaalmo dhaqaale oo gobolka ah oo ka badan $6,000 cid kasta oo maxaan ku raahday qaranka kan ka damqanaysaana waxa la gudboon wax la wixii ay keeni karto inay keento laakiin waxaan leeyahay ma aha abaartu wax siyaasad laga baaro cidii wax ku kordhinaysa oo furantahay ku kordhiso walaalahooda tabaalaysan geesta kalena xasan gaafadhi afayeenka xisbiga kulmiye ayaa ka hadlay arintii dhacdadii ka dhacday badda u dhaxaysa dalalka Soomaaliland iyo Djibouti markabka biyaha saylac waxaan ku raahday dawladda Djibouti rasaasta ay ku riday oo ku dhintay marxuumku ku dhintay noo ku dhaawacmay ka tacsiyeynaya qoyskii marxuumkaas uu ka baxay waxa la isku waafaqsan yahay markabkaas inuu biyaha Djibouti galay waxa kale oo la isku waafaqsan yahay in ay sirasaasayntu ka dhacday biyaha Soomaaliland arrinkaas waa arrin labada dawladood ay ku jiraan waana arrin la dhameynayo waana dhamaanayaan waxaan leeyahay arrinkaas wax hirtaanyaha oo keenaya ma jirto Djibouti inaanay Soomaaliland cadaawad u qabin waxa muujinaysa inay safaaradeedii shalayto ka furatay magaalada madaxda Soomaaliland Hargeysa waxay taas ka tarjumaysaa in ay diyaar u tahay inay xidhiidh sokeeye oo saaxiibtinimo oo walaalnimo oo jaarnimo ay diyaar u tahay geesta kale gudoomiyaha xisbul xaakimka kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay weheliyaan madaxda sare ee xisbiga ayaa kulan la yeeshay isxuguraysiya xildhibaanad Aamina Cali oo ka tirsan golaha deegaanka Tower Hamilton ee dalka boqortooyada Ingiriiska iyadoo labada geesood ay ka wada hadleen xildhibaanadu socdaalkii ay ku martay gobolada Soomaaliland iyo waxyaabihii uga qabsoomay iyo qorshayaasha ay wadaagi karaan xisbul xaakimka kulmiye iyadoo kulankaasina uu saacada qaatay isla markaana labada dhinac ay ku wada gorfeeyeen sidii horumarka Soomaaliland iyo helida ictiraaf caalami oo Soomaaliland ay beesha caalamka ka hasho ay u wadaagi lahaayeen si wada jira